Waxaa maanta degan xaaladda magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaasoo maalmihii ugu dambeeyayba ay ka socdeen mudaharaado rabshado wata, oo ay dadweynaha magaaladaasi ku nool kaga soo horjeedeen dilalka qorsheysan ee lala beegsanayo haldoorka gobolka Sool oo muddooyinkii u dambeeyayba magaaladaasi si joogto ah uga socday. Arrintaasi oo keentay in isku dhacaan ciidamada booliska Somaliland iyo dadweynaha mudaharaadada dhigayay, halkaasoo ay ku naf waayeen 5 qof, halka tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. Wararka aan ka helna magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in maanta xaaladdu ay degan tahay, isla markaana wax dhibaato ah ka jirin magaaladaasi. Geesta kale waxaa soo taraya baaqyada loo soo jeedinayo dadweynaha deegaanka ee ku aadan inay joojiyaan mudaharaadada rabshadaha wata ee maalmihii ugu dambeeyayba halkaasi ka socday, iyadoo xukuumadda Somaliland uu u hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland Saleebaan Yuusuf Cali Koore oo ugu baaqay dadweynaha deegaanadaasi inay isdejiyaan isla markaana ay xaaladda ku soo celiyaan sidii hore. Mas'uuliyiin badan oo ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo golayaasha qaranka oo warbaahinta si gooni ula hadlayay ayaa ku eedeeyay in arrinta Lascaanood ay ka dambeeyaan gacmo shisheeye, isla markaana ujeedadu ay tahay in dadweynaha deegaanadaasi nabadgelyada iyo xasilloonida ay ku nool yihiin khalkhal la geliyo. Mas'uuliyiinta ka tirsan dowladda Somaliland ee maanta hadlay waxaa ka mid ah xubno ka mid ah golaha wakiilada Somaliland oo baaq dheer u jeediyay guud ahaanba dadweynaha gobolka Sool, iyo sidoo kale madax dhaqameed maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa oo sheegay inay aad uga xun yihiin dhibaatada ku dhacday dadweynaha gobolka Sool, isla markaana ay ka tacsiyadeynayaan dadkii halkaasi ku naf waayay, kuwa dhaawacmayna Ilaahay uga baryay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. Sidoo kale wasiir Koore oo ah hafayeenka xukuumadda Somaliland ayaa sheegay in aad uga xun yihiin dhibaatooyinka ka dhacay magaalada Lascaanood ee dadweynuhu halkaasi ku naf waayeen, isla markaana dadweynaha uga baaqay inay xaaladda dejiyaan. Arrintan ayaa noqonaysa arrin maalmihii ugu dambeysayba guud ahaanba deegaanada Soomaalida si weyn loogala socday, iyadoo dadweynuhu iyo guud ahaanba bulshada haldoorkii ay aad u cambaareynayeen dhibaatada ka socota magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, telefishinka caalamiga Sam News, Hargeysa. hadduu hagaago jirku wada hagaagaya, hadduu xumaado jirku wada xumaanaya. Hello. Maamo, ma fiican tahay? Nabad hooyo iska warama. Hooyo, waxaan ahay nin dhibaataysan, gabadhii laga qalay dhakhtar ku jirto, caruurtiisana ay ka kaajoonaysaa. Haye. Hooyo, lacagta intaan haystay mobilkaaga ku soo dhacday. Biyaygaga ka soo khaldameen hooyo. Mobilkaaga maamo ku soo dhaceen. Hooyo waan ku soo celinay anigu hooyo garan maaye. Bal aan u yeedho hooyo kaygii inaan ahaa hooyo isug hooyo isug Allah. Axmedow. Hooyo hada. Hooyo. Hooyo. nin dhibban baa hooyo la soo hadlay. Wixii uu yidhi hooyo. Gabadh baa dhakhtarkayga furan. Caruurtiina waxaan dabka u saaramay. Ma hayo. wixii aan haystayna mobilkaagan bay kaga soo dhaceen buu hooyo yidhi. Hooyo u celiyo. waxaan doonayaa hooyo. waxaan u malaynayaa 300 mala gabadhan hooyo lagu qalayay. konton hooyo ugu tartay. konton kayo xasima jiraan. wax tuug baa soo baxday marka noocan ku shaqaysataa. degdeg un bay oranayaan qofkuna wuxuu haystay ayuu diraa. aan ka hubiye tuug xariif oo dhulka is dhigaya ayaa soo baxay isig. hooyo malakaas. yo eeg debala ku wakaas oo ku sheegay fariinta ku timidba ma hati sharciyeysnayd shirkadda ka soo baxaysay waa tu mobil laga soo diray noocan ay ku shaqaystaan iyo soo dirbay kuna noqod u diraysa ana la hadlayay kaati. Hello artuugaaga saqataan ka ilaahay dadka ka qabto Bilahayna lacagta noo soo celi. oo dhigay hor markuu arkay inuu ogaado wala xawlo way waxa ma ka beenba waa been iimaan kale waa tuug weeyaan hadaba waxaan kala hadaad aragto xabaha ku degdegan xalaha u dirine xalaagaaga la soco maamil shirkadda Telesom waxa ay ku leedahay ka feejignow cid kasta oo ku tiraahda lacag ayaa ay ka soo khaldantay ee ii soo celi fadlan hubi xalaagaaga oo eeg in fariintu kaaga timid $8 oo iyo sidoo kale 3 oo ah Somaliland shilling. Maamil mobilkaagu waa khasnadada maaliyadeed ee fadlan ilaasho.